waxaana wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kastoo joogtaan halkani waa bandhiga TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan xilligan idin soo gudbin doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay xildhibaanada golaha shacabka oo isku raacay xubnaha ka shaqeynaya doorashada guddoonka golaha shacabka kadib dalab la yaab leh oo uu soo gudbiyay gudoomiyaha ku meel gaarka ah muxuu ahaa hadalkii gudoomiye ee dhaban cad ee ay dhibsadeen xildhibaanada xog laga helay wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya oo uu hoggaansamay amarkii ra'iisul wasaare Roble iyo Francisco Madera oo iska casilaya xilkan haddaba miyaa looga adkaaday madaxweyne Farmaajo dagaalkan oo uu horay ugu difaacay danjirahan shaki weyn oo laga muujinayo murashaxnimada madaxweyne Farmaajo iyo Saciidani kadib halis weyn oo soo wajahday murashaxiintan wararkan kalena waxaa kamid ah Yaasiin Faray oo diiday in loo dhaariyo xildhibaannimada loo doortay iyo Villa Soomaaliya oo qorshahan ka dambaysa xilli ra'iisul wasaare Roble uu fursad weyn ku raadinayo kooxda Villa Soomaaliya iyo ciidamo taageersan madaxweyne Farmaajo oo loo diray magaalada Ceelwaaq iyo xog laga helay qorshaha loo adeegsan doono ciidankan qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeenan ee daawadayaal si shargareeya waana Sabti 16 bisha Afraad ee Abriil sanada 2022 aynu ku bilowno wararkeena maanta waxaa shirar yeeshay xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxaana ay kulankoodan uu ahaa mid xasaasi ah isla markaana lagu go'aaminayay halka loo jihayn doono doorashada guddoonka golaha aqalka sare iyo sidoo kale midka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxaana la magacaabay guddiyo doorasho oo markaasi ka shaqeyn doona arrimaha ku saabsan doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ee federaalka ah ee Soomaaliya haddaba waxaynu ku hormaraynaa guddiga markaasi loo magacaabay doorashada guddoonka golaha shacabka gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka xildhibaan Cabdisalaan Axmed Dhabancad ayaa magacaabay guddi qabanqaabada ee doorashada guddoonka golaha shacabka ka shaqeeya kaas oo ka kooban 10 xubnood oo markaasi ka soo kala jeeda 5 beelood waxaana gudoomiyuhu markii hore uu soo bandhigay qorshe ah in uu isagu soo magacaawdo balse xildhibaanada ayaa ka diiday arrintaas waxayna dalbadeen in la sameeyo in markaasi habbeeleed lagu dhiso marka la soo xulayo xubnaha ka shaqeyn doona xildhibaanada ee ka shaqeyn doona doorashada guddoonka golaha shacabka xubnahan ka shaqeyn doona ayaa waxay yihiin ilaa 10 xubnood waxa ayna kala yihiin Cabdullaahi Roble oo ka soo jeeda Puntland isla markaana ka dhashay beesha Daarood Maxamed Xuseen Haadi oo ka soo jeeda Somaliland isla markaana ka dhashay beesha Dir Cabdirasaaq Cumar oo ka soo jeeda Hirshabelle kana dhashay beesha Hawiye Xuseen Maxamed Nuur oo ka soo jeeda Galmudug kana dhashay beesha Hawiye Xaaji Cali Maxamed Nuur oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed kana dhashay beesha Dir waa beesha Digil iyo Dirif waa beesha Digil iyo Mirifle 6 waxaa kamid ah Maxamed Abuukar oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo Digil iyo Mirifle ah Dahabo Suusow Maxamed waxa ay ka soo jeeda Hirshabelle waana beesha shanaad Qaasim Cilmi Seed waxa uu ka soo jeeda Galmudug waana beesha Daarood xubnaha kale waxa kamid ah Cumar Shariif Jeeg waxa uu ka soo jeeda Banaadir waxa uuna markaasi ka dhashay beesha shanaad halka Nasro Mahdi Caraale ay tahay qofka ugu dambeeya waxayna ka soo jeeda Jubbaland waana beesha Dir guddigan ayaa maalinta Birita ay yeelanaya kulankoodii u horeeyay oo ay uga arrinsanayaan howlaha qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya haddaba sidoo kale guddoonka aqalka sare xubnaha ka shaqeynaya ayaa iyaguna la magacaabay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta magacaabay guddiga doorashada guddoonka aqalka sare kadib soo jeedintii ka timid xildhibaanada aqalka sare senatarada aqalka sare ayaa maanta kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Muqdisho waxaana kulanka ajandihiisu u ahaa warbixinta gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee ku aadan howlaha horyaala senatarada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda guddiga ka kooban 6 xubnood ayaa loo magacaabay in ay qabanqaabiyaan doorashada guddoonka aqalka sare oo ka kooban gudoomiye iyo 2 gudoomiye ku xigeen waxaana lagu soo xulay hanaan maamul iyada oo maamul goboleed kasta hal xubin laga keenay laguna daray xubin ee ka socota Somaliland magacaabista xubnahan ayaa dadajinaysa doorashada guddoonka aqalka sare taas oo markaa dhabaha u xaaraysa marka ay dhacdo in sidoo kale la qabto doorashada madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale maanta gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka ayaa isaguna magacaabay guddi ka kooban 10 xubnood kuwaas oo markaa ka shaqeyn doona arrimahan labada aqal ayaa markay soo dhameystiraan doorashada guddoonkooda waxa ay gudagalayaan doorashada madaxweynaha Soomaaliya xubnaha aqalka sare laga soo xulay 6 ah ayaa waxay kala yihiin kana shaqeyn doona guddoonka doorashadiisa Sheekh Aadan Cabdinaasir Maxamed oo Koonfur Galbeed ka soo jeeda Saciid Cabdi Xuseen oo Somaliland ah Farxaan Cali Xuseen oo Puntland ah
zamzam daahir maxamuud oo galmudug ah, cabdirasaaq maxamed cusmaan oo jubbaland ah, iyo zamzam cabdulaahi axmed oo iyaduna hirshabeelle markaasi ka socota amaba markaasi maamul ahaan ka soo jeeda. si kastaba doorashadan ayaa waxa ay markaasi noqon doontaa mid xasaasi ah oo laga dhursugo cidda markaasi guuleysan doonta xubnaha u tartamaya guddoonka golaha markaasi shacabka iyo sidoo kale kuwa aqalka sare baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana aad loo dhursugayaa sidii markaasi loo sameyn lahaa doorasho lagu wada qanacsan yahay oo markaasi si hufan dalka uga dhacda. waa hagaag qaybaha dhexe ee wararkeena ayaad la socotaan saaxiibayaal. haatanna haddii aynu eegno wararkeena kale ee ku saabsan arrimaha siyaasadda, madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqda mid markaasi looga adkaaday tartankii iyo dagaalkii uu markaasi ka dhashay ceyrintii xukuumaddu ay ku samaysay wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madera. warar soo baxaya ayaa waxa ay markaasi sheegayaan in Francisco Madera uu aqbalay in uu xilkan iska casilo, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan midowga Afrika ay markaasi u soo magacaabayaan ergey bedela shaqsigan. ururka midowga Afrika ayaa haatan ku howlan sidii loo badbaadi lahaa amaba loo bedeli lahaa wakiilka ururkaas u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madera oo u dhawaan dalka ka ceyriyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda. wargeyska la yiraahdo The East African oo soo xiganaya ila diblomaasiyadeed ayaa shaaciyay in maalmaha soo socda la bedelayo Madera kadib markii uu xumaaday xiriirka kala dhexeeya xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo mudane Roble. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya si weyn loogu cadaadinayo in uu xilka iska casilo si aysan ugu ekaan in shaqada markaasi laga eriyay. ujeedka ayaa lagu sheegay in midowga Afrika uu doonayo sidii hoos loogu dhigi lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay eriyada danjirahooda u qaabilsan Soomaaliya. warbixinta ayaa sidoo kale muujinaysa in ninkan lagu bedelayo Maman Zambo oo u dhashay dalka Niger. Francisco Madera oo loo jaray warqad aan dalka looga baahnayn ayaa waxaa markaasi faragelin ku sameeyay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo warqadaasi ka hor yimid, warqadaasi oo ka soo baxday ra'iisul wasaaraha. arrintan ayaa ku soo aadaysay iyadoo khamiistii la soo dhaafay gudoomiyaha midowga Afrika uu shaaca ka qaaday inuu kalsooni buuxda markaasi ku qabo Master Madera, isaga oo si weyn uga soo horjeestay go'aankii ra'iisul wasaaraha dhinaca kalena taageeray madaxweynaha dalka. qaar ka mid ah falanqeeyaasha siyaasadda ayaa waxa ay sheegeen in hadalkaas uu yahay mid lagu difaacayo sharafka Madera. si kastaba arrimahan oo idil ayaa ku soo aadaya xilli la bedelay howlgalkii AMISOM, isla markaana hadda uu shaqeynayo howlgalka markaasi la yiraahdo ATMIS, kaas oo la filayo in markaasi arrimo badan uu xalliyo. waa hagaag qaybaha dambe ayaanu isla soo gaarnay. Yaasiin Farey ayaa la sheegayaa in uu diidan yahay in uu markaasi ka qayb galo amaba uu dhaarto. wararku waxay tilmaamayaan in Yaasiin Farey ujeedka uu arrintan u diidan yahay ay markaasi tahay in uusan xilka markaasi agaasimaha NISA baneynin inta madaxweyne Farmaajo uu xilkaasi qof kale uga magacaabayo. warar la helayo ayaa sheegaya in Yaasiin Farey uusan weli markaasi isu diyaarin in uu isagu ka qayb qaato dhaarinta markaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana arrintan loo sababaynayaa in ay tahay in markaa la qorsheynayo in la magacaabo shaqsigii markaasi isaga xilkan ka bedeli lahaa maadaama uu yahay agaasimaha NISA. ugu dambeyntiina ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan gobolka Gedo isla markaana taageersan madaxweyne Farmaajo ayaa qorsheynaya inay tagaan magaalada Ceelwaaq oo la filayo inay ka dhacdo doorashada 16 kursi oo kamid ah golaha shacabka sida ila wareedyo ka tirsan Villa Soomaaliya xaqiijiyeen. ciidamadan ayaa sida la sheegay isku dayaya inay joojiyaan doorashada halkaas ka dhacaysa ee uu wado maamulka Jubbaland kadib markii laga soo wareejiyay Garbaharey, balse ma cadda sida ay ugu guuleysan doonaan. Ceelwaaq ayaa ku taala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, waxaana la filayaa in amniga doorashada halkaas ay sugaan ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM. sida xogaha lagu helay, gobolka Gedo ayaa waxa intiisa badan gacanta ku haya ciidamo taabacsan madaxweyne Farmaajo oo isugu jira xoogga dalka iyo NISA, gaar ahaan qaybta Duufaan, waxaana markaasi ay ciidamada noqon doonaan kuwa carqaladeyn kara doorashada halkaasi la qorsheynayo inay markaasi ka dhacdo. doorashada gobolka Gedo ayaa muddo ahayd xudunta khilaafyadii keenay dib u dhacyada sanadka ka badan ee doorashada Soomaaliya, iyadoo isku hayeen madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo hadda u muuqda in uu loolankaasi ku guuleystay haddii aanu dhicin isbedel kale oo markaasi degdeg ah.
guudaan intaas ayuu ku dhanyahay warkeenii oo aad kala socoteen bandhiga TV warkan war la mid ah intaanu mar kale dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gali